أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. qayb kale oo aan gelayna maanta oo alifbeetka ah. Alifbeetadan ku jirnaa weli dadkaan carabi hore usoo baran. casharkan maanta waa casharkii saddexaad. hore waxaan usoo dhignay casharkii koowaad, kan labaad hadda waan ka boodaya maaragtay for some reason, sabab awgeed. waxaan is leeyahay waqti dambe oo munaasib ku yahay baan soo gelinaynaa insha allah, maadaama carabigu uu qofkan ku cusub yahay, sidii uu kalena ila sahlanaada inaan laba laga dhigo. laakiin webka 3 buu ka dhigay casharkii saddexaad. Madina almadina Arabic sidaa hore usoo sheegay. webka magaciis waa sidaa. waxbay hadal ku dheeraan. aan bilowno. click baa ku samaynaysaa, isagaa ku dhawaaqaya maaragta. saas ku fiican yahay webkan. okay. kii hore alifbeetada alif baan lahayn, markaan waxbaa kusoo kordhay. hamza korka ka saaran, adhoon inaa arkaysid. wax hamza la yidhaahdo oo aad moodid maxaa la oran jiray sidaa ah oo saas ah. meesha waad arki doontaa xaraka yar waa korka ka saaran. waxaan maanta baranaynaa xarakada mid ka mid ah, saan u kulligood ku sheegin. midaan baranayna maanta waa fatxa. af carabiga fatxay dhahaan, waa kor dhow. af soomaaliga korka ayuu maraa, waa xariiqin. kor dhow, ma garatay? so waa kana alifkii hore usoo baranay. maanta waxaa lagu soo kordhay xarakadaas kor dhowga ah ama fatxa. sida loo akhrino marka a, ba waa kor dhow, waad click waa ku samaynaysaa. ta, fa weli alifbeetka ku jiraa. ja, xa, kha, da, dha, ra waa ku ceshceshan kartaa ilaa intaad doonaysid. za, sa siin way maaragtay. sha, so, do, to, va, a. xoogaa oo complicated waa adkaana hadduu kugu cusub yahay. gha laakiin markaad tamriin ku samays ku celcelisid waa baranaysaa insha allah. fa caadi kula noqonaya. o, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. waa xaruftii alifbeetada intaa way ku dhammaatay. kolleyba maanta waxaan barana waxaa waaye maaragtay kor dhow ama fatxa. waa xariiqin dusha ama korka ka saaran xarafkii a'dii ba'dii taadii maaragtay. waxa walba sabir u baahan yihiin. luqad carabiya baranaysaas ma lahayn. wax adag baan u malayn jiray oo shaydaankaaba ku diidaayo. laakiin axsan luqa maaragtay luqadaada fiican maaragtay inaad fahamtid hadalka ilaahay oo qof kale idin kala turjumin oo wixii ilaahay yiri lagu sheegin adiga inaad si toos u fahamtid. waa damiir aanan ka sheekeyn karin. anyway, that's another topic. I don't want inaan maaragtay muxaadara kala galo. waxaan focus ka saaraynaa luqadda carabiga. maanta casharkeena saddexaad, kii labaadaan kasoo boodo dib ugu soo noqon doonaa. almadina Arabic waa webka aan joogo aan carabiga ku wada insha allah. waa kaas. hadda billahi tawfiiq.
kor u soconaynaa insha allah. uh, that's all I think. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.